السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي السو دواذا maanta videoga idin wada aad u cabsi badan yahay waxa dhacday arrin aad mucjiso ah oo ka dhacday wadanka Indonesia tuulada la dhaho Jammi 22 bishan October oo ku aadan Jimcadii la soo dhaafay waxa la waayay haweeney 54 jir ahayd kadib markay u baxday inay soo gurato ciinka ama dheecaanka geedaha kuwaas oo laga sameeyo goomaha ayna iibsadaan dadka tuulooyinkaas degan kana iibsadaan shirkadaha goomaha kadib markii haweeneydii la waayay qoyskeeda waxay bilaabeen inay caawinaad weydiistaan qolooyinka gargaarka degdega ah iyo dadka deegaanka baaritaano la suubiyo ka bacdi axadii 23 bishan October waxaa la ogaaday in uu deegaanka ama tuulada soo galay maska aadka u weyn ee loo yaqaan jabisada waxaana bilaabatay isla markiiba dadkii inuu galo tuhun ah in uu maskaasi laqay haweeneydaasi la laayahay ka bacdi maskii markay weerareen dadkii ay bilaabeen inay ka soo saaraan muski ama godkii uu ku jiray waxay arkeen inuu calooshiisa aad u weyn tahay waxayna noqotay sidii ay shakiga ka qabeen oo maskan wuxuu laqay haweeneydii 54 jirka ahayd ee la weysanaa masaskan waaweyn ee loo yaqaan jabisada ayaa markasta ku haya dhibaato dadka ku dhaqan tuulooyinka wadanka Indonesia maxaa yeelay Indonesia waa wadan ka kooban jasiirado sida ognahayna markastaba jasiiradahan waxay ku nool masas kuwaas oo dhibaatooyin ku hayo dadka meeshaas degan